waayahan dambe waxa soo badanaya qoysaska burburaya maxaa is leedahay way ka dambeeyaan in qoysaskaas burburaan okay qoysaska burburaya wallahi horta waxaa keeni kara baan isdhihi karaa boqolkiiba 90 gabdhaha waxaana taas sababi kartaa gabadha haday ninkeeda ka dambayso oo kaleeta ay ixtiraamto oo waxyaabaha qaarkood uu arkaysa ninkeeda inuu dhibayo inay ka ilaaliso ninkaaga oo ilaalisayna waxaad ku mutaysan kartaa jannadii raali ahaansho rabbi iyo cizi iyo karaamo ninkaaga haddaad ka dambaysid waxaad ahaanaysaa malikatu almalikaat min fataati as-soomaaliyuun dabcan nabi sallallahu alayhi wasallam markuu tilmaamayay gabdhaha saalixaadka ah wuxuu ku tilmaamay fasaalixaatu ghaanitaatun xaafidaatun lilghaybi bima xafida allah lilghaybi bima xafida allah waxaa laga wadaa dabcan gabadha haddii ninkeeda ay ixtiraamto oo ay xafido wuxuu asaga sirriyihiisa ay qariso caruurtiisa ay u ilaaliso hadday caruur u hayso haddii gurigiisa uu ka maqan yahay ee u ilaaliso bilaa amar aan qof kasta iska soo galin guri available uusan ahaanin oo yani wax kasta ku soo gudboonaada gurigaas ay la wadaagayso dabcan gurigaas oo kala dambeyn iyo tanaasulka zawjiga lagu dhaqaayo wuxuu ahaanayaa mid dhismaya sas baan aaminsanahay haddii ninka ay ka dambaysana dabcan gurigeedu wuu sii raagayaa